بسم الله الرحمن الرحيم. halkan waxaan ka bilaabaynaa taxane ku saabsan dhacdooyin iyo waxyaabo yaab leh oo ka jira dunida. taxanahan waxaan ku bilaabaynaa ceelka lagu magacaabo barhuud ama bi'ru jahannam, ceelka naarta, ama sida ay dadka u yaqaanaan bi'rul mawt oo ah ceelka dhimashada. ceelkan yaab kale waxa uu ku yaalaa gobolka xadarmuud ee dalka yemen, waxaana lagu magacaabaa ceelka barhuud. ceelkan waxaa lala xiriiriyaa sheekooyin argagax leh oo ay wariyaan dadka deegaanka. haddaan tusaale u soo qaadanno, zamaqshari waxa uu soo wariyey in ceelkan lagu xabiso arwaaxda gaalada. iyadana sidoo kale dhulmareenkii loo yaqaanay yacquub alxamawi oo ka mid ahaa dhulmareennadii booqday soomaaliya qarnigii 12aad, sheegayna in magaalada muqdisho ay ahayd wakhtigaa magaalada ugu taajirsan uguna awoodda badan gobolka. waxa uu ku sheegay kitaabkiisa mucjam albuldaan in ceelka barhuud in lagu xiro ama lagu xabiso ceelkan arwaaxda gaalada. magaca barhuud waxaa loogu magacaabay waa waadiga uu ku yaallo ceelkan. al-imaamu shaafici waxa uu sheegay dhankiisa in biyo loogu necab yahay 8 nooc oo kala ah: biyo qorraxda la dhigay, biyo aad u kulul, biyo aad u qabow, biyaha dhulka reer thamuud marka laga reebo ceelka loo yaqaano bi'ru naaqa ama ceelka hasha, biyaha dhulka reer luud, biyaha ceelka barhuud oo ah kan aynu hadda ka hadlayno, biyaha dhulka baabil, iyo biyaha ceelka darwaan. ceelkan waxaa la sheegaa inay ka soo baxdo ur aad u xun, marka la dhegaystana waxaa laga maqlaa qaylo iyo sawaxan aan la garanayn. taas ayaana keentay dadka dhulka deggan in ay soo wariyaan sheekooyin. waxaa kale oo ay sheegaan dadka deegaanka in ceelku uu yahay xabsi jin, taa darteed qofkii galaa inuusan ka soo bixin isaga oo bad qaba, waaba haddii uu ka soo baxe. ceelka barhuud waxaa jira sheekooyin ay wariyaan dadka deegaanka in bohosha mandiqada fuujiid oo ka tirsan maamulka shaxan ee gobolka mahra dadkuna ugu yeeraan godka barhuud. waxaana sheegaan dadka deegaanka in bohoshani tahay tan ceelka barhuud. godkan waa mid mugdi ah oo aad u dheer. dadka boholaha baaraa oo galay bohoshan labaad waxay ka soo qaadeen sawirro, waxayna sheegeen inay ku nool yihiin shimbiraha fiidmeerta ama koboliga iyo masaska. waxaana ka soo baxa urta maaddada loo yaqaano salfaydka ama kibriit, wuxuuna leeyahay rutuubo aad u sarrayso ama qoyaan aad u badan. haddaba iskudayo badan oo guulaysan waayey kadib, ugu dambayntii sheekooyinkii naxdinta lahaa ee muddada dheer laga soo warin jiray ceelka barhuud waxaa soo afjaray oo galay guntiisana gaaray koox cumaaniyiin ah oo ku takhasusay baaritaanka boholaha iyo godadka waaweyn. taariikhdu markay ahayd 15 sebteembar sannadkii 2011. ceelkan oo sidaan hore u soo sheegnay lala xiriiriyo sida inuu xabsi u yahay jinka iyo shayaadiinta, ayaa markii ugu horraysay waxaa hoos ugu degay kooxda cumaaniyiinta ah oo ay la shaqaynayaan guddiga cilmiga geologiga iyo macaadinta ee dalka yemen. ceelkan afkiisa waa 30 mitir, qotadiisuna waxay gaartaa ilaa iyo 112 mitir. marka hoos loo sii degana wuu sii ballaartaa. baaxadda guntiisa waxay gaartaa 116 mitir. waxaana loogu tagaa oo daadsan miraha dhirta ka baxda qararka ceelka iyo xayawaanaad ku dhintay ceelka, taasoo loo nisbeeyo urta ka soo baxda ceelka. ceelka waxaa ku dhex yaalla godod ama waxa loo yaqaano keefiska iyo dhagxan fiiqfiiqan oo af leh. marka hoos loogu dhaadhaco ilaa iyo 65 mitir qiyaastii waxaa ku yaal ilo ay ka soo burqadaan biyo, kuwaasoo sameeya biyodhacyo aad u qurux badan. ceelku wuxuu kale oo leeyahay biyodhacyo kale oo kala biyo badan. biyodhaca xiga dhanka bariga ayaa ah kan ugu weyn. ceelka barhuud waxaa ku dhex yaalla godod ay deggan yihiin kaa'inaad ama noolayaal ay ka mid yihiin masaska, raha iyo balambaalista. waxaa kale oo ku dhex yaallo tiirar soo samaysmayey muddo malaayiin sana ah oo dherarkoodu gaarayo ilaa iyo 9 mitir. sheekooyinka laga sheego ceelka oo aan horey u soo sheegnay waxaa ka mid ahaa in godadka ku yaallo ceelka dhexdiisa ay ku nool yihiin yaxaasyo waaweyn. halkaana waxaa ku dhammaaday sheekooyinkii ceelka geerida ama ceelka naarta. waxaana laga yaabaa in mustaqbalka uu noqdo meel loo dalxiis iyo daawasho tago, mise waxaan dhahnaa balaayo lama doonto. intaana waxaan ku soo gebagabaynaynaa sheekadii ceelka barhuud.